kalfadhigan golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta waxa lagu ansixiyay xeerka gariiqaanka guud ee qaranka. xeerkaas oo qeexaya xilka iyo waajibaadka xafiiska gariiqaanka guud kana kooban diyaarinta qabiil qoraalada xeerarka xukuumaddu curiso, la talinta sharci ee dhammaanba hay'adaha dawladda, matalaadda dacwadaha madaniga ee dhammaan hay'adaha dawladda, iyo soo saaridda faafinta rasmiga ee guud ahaanba xeerarka ansaxay ee qaranka. sidoo kale waxaa kalfadhigan lagu qaybiyey nuqulka siyaasadda shaqaalaha rayidka oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyo nuqulka wax ka beddelka xeerka shaqaalaha rayidka xeer lambar 12/2014. kalfadhigan golaha wasiirada waxaa warbixino lagaga dhageystay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta oo ku dheeraaday ahmiyadda ay macdanta iyo tamartu u leeyihiin guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana golaha u soo bandhigay qorshe hawleedkooda sanadkii dhammaaday iyo sanadkan soo socda ee ku aadan sidii dalka macdantiisa si looga faa'iideysto loogu soo saari lahaa looguna heli lahaa maalgashiyo caalamiya, isagoo wasiirku sheegay inay diyaariyeen siyaasadihii lagu hagayay. waxaa kaloo wasiirku golaha wasiirada u sheegay in ay diyaariyeen siyaasaddii tamarta, iyagoo ay ka duulayaan siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan in dalku uu helo koronto ku filan, isla markaana ay qayb ka ahayd barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ee xilligii ololaha. wasiirka macdanta iyo tamartu wuxuu ku dheeraaday in Soomaaliland rajadii laga qabay in shidaal la soo saaro oo sahankoodii hore u sameeyeen shirkado badan oo caalamiyay, iminka loo guuri doono wajigii labaad ee ceelalka shidaalka loogu qodayo Soomaaliland si qarankeenu uu isku filaanshiyo u helo. waxaa isaguna golaha wasiirada warbixin ka jeediyey wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Garwadeenka ka yahay in shacab weynaha reer Soomaaliland laga haqabtiro biyo nadiif ah oo ay cid waliba hesho. wuxuuna wasiirku ka dhawaajiyey in muddadii ay wasaaradda joogeen ay dayactireen ceelal fara badan, isla markaana ay dhiseen oo ay hirgeliyeen ceelal badan, isagoo sheegay in qorshahoodu uu yahay sidii biyo ku filan magaalooyinka waaweyn iyo miyadaba looga gaari lahaa loona qaban lahaa biyaha socda ee roobka ee ka dhasha ee had iyo jeer ale dooxyada maraya si ay badda ugu darsamaan.